hay taageerayaashayda muslimiinta qaar ka mid ah walaal waan islaamay dhammaantiin aad baryaha waxaan arkayaa in taageerayaasheena dagaal ku socdo oo la leeyahay meesha maxaa u tagteen, meesha beejka maxaa u korteen, qofka maxaa u sabooraysaa. Idinkana waa arkaya qaar idin ka mid inay cabsi ka muuqato ay boqanayaan. Taa waan fahmi karaa, bulshadeena kantaroolka ku badan, dhibtaa ku badan, social controlku waa wax jira weeyaan. Ogow social controlka waa laynagu soo kariyey, waa qayb ka mid ah lifekeena, jirkeena ku jiraan. markaad rabtid inaad wax bedeshid lifekaaga waa inaad xanuun martid, dhib bay leedahay, xanuun bay leedayso. Hada jeer dareenkeena feelingkeenu sax ma wax dareemayso, question dareenkaaga waxaan intay ka yimaadeen ayaa ku baray waxaan sidee ku usoo galeen jirkaaga. Su'aal iska weydii marka wax dareem waayo boqolkiiba 90 waxaan ku soconaa waxay dhahdaan autopilot. wixii hore laynoo soo baray bay maskaxdeena ku shaqaysaa. marka wax cusub daarifna maskaxda soo gelisid xanuunkeeda leedahay. waa inaad repetition fara badan ku samaysid, aad ku celcelisid daweyga aad rabtid inaad u noolaatid iyo cidda aad rabtid inaad accept garaysid iyo waxaad rabtid inaad taageertid. taas waa muhiim. aniga lafteeda arrimahaas oo kale soo xagga diintay noqotay. diintaada hayso, muslim ahow, laakiin anugu kaagama baahni inay igu celcelisid mar walba kayse. anigu waa ku respect garaynayaa, laakiin ma respect garanaya ficilka sameynaysid. diinteena waxay tiri waa xaaraan aad ku celcelisid siday publicka ku dhageystaan. anigu taa kugu maraacsanay. anigu markaa kula joogo ee ogtay qofkaan haya standardka halkaan taaganahay, haddaa respect garaynaysid diinta horta igalaba hadlin. wixii kale aan ka sheekaysanaan comment ka nahay aniga xagga diinta. hataa xagga diinta ila aadid iga sheekee ta keliya moralkayga dhisaysa ee maskaxda dhisaysa ee jacaylka tusinaysa ee walaaltinimada tusinaysa. dhinacan caybka aniga hay gelin. waa soo maqlay, wax badan baa soo maqlay, waan buuxaa. dhinacan caybka haddaa ixtiraamaysid iga daa. walaa dumar jirkooda ka ganacsadaan aad garab dhigi karin, walaa qof wax qalada sameeyaan aad garab dhigi karin, walaa qof cadaabta galayaan aad garab dhigi karin. judgmentalka ay diintaada ku siisay adigu hayso, adigaa kugu koobnaado. aniga yaay maqashiin, dhagahaygu yay maqlin, mar raba inaan maqlo hayla imanin. taas waa taa. still anigu weli waa ku respect garanaya, waa ku jecelahay. ka yara fakir taas adiguna. waa challenge aan kuu soo diray. anigu ma dhahayo xuquuqda dumarka waan taageeraa markay human rightska tahay, laakiin xuquuqda dumarka ma taageero markay dhinaca diinta tahay. 50% weeyaan. aniga sheekooyinka agteeda looguma aamin. aan kule street baa igu imanaysaa. stand point aduguna waa inaad qaadatid qofka taageeraysid, qofkaana taageerin. si fiican uga fakir. maalin wanaagsan baan kuu rajaynayaa.